salaamu calaykum akhyaarta. maanta waxaan idiin sheegayaa calaamadaha lagu garto maamulaha xun ama booskaaga. qofka shaqaalaha wuxuu leeyahay qof maamulo ah oo asaga ka sarreeya oo managerkiisa ah. haddaba waxaan kuu sheegayaa calaamadaha lagu garto managerka xun ama maamulaha xun oo sida xun ula dhaqma shaqaalihiisa. haddaba daawade, ma soo shaqaysay oo shaqaale ma soo noqotay oo kambani ma ka soo shaqaysay oo ma soo aragtay qof maamulo xun ah ama ma soo maray maamule xun? haddaba calaamadahan aan kuu sheegayo ma laha maamulihii xumaa aa soo martay ama managerkii xumaa. haddaba daawade, waxaan kuu sheegayaa 5 calaamadood oo lagu garto managerka xun ama maamulaha xun. calaamada koowaad, ma laha wax aaminaad ah oo kuma aaminayo si walba oo aad u tahay qof daacada. maamulayaasha xun badanaa shaqaalahooda ma aaminaan. calaamada labaad, waxay bixiyaan jawaab celin eber ah oo shaqo walba oo aad qabato waxay kaaga dhigayaan inaad waxba qaban. haddii aad macalaa shaqo fiican aad qabatay, waxay ku siinayaan jawaab celin eber ah oo aan waxba ahayn. calaamada saddexaad, waxa uu ku ciyaaraa sharciga u yaala kambaniga ama goobta shaqada. waxaa jira sharci u dhexeeya qofka maamulaha iyo qofka shaqaalaha. haddaba asagu wuxuu rabaa sharcigiisa ku aadan asagii qofka shaqaalaha inuu ku ciyaaro oo uusan ixtiraamin, adigana uu kugu qayliyo oo badanaa uu mataqaanaa kugu xadgudbo ayuu rabaa. calaamada afraad, waxa uu jecel yahay shaqaalihiisu inay noqdaan sida isaga uu yahay. waxaa laga yaabaa shaqaalihiisa inay isaga ka cilmi badan yihiin oo asaga ka aqoon badan yihiin oo ay ka karti badan yihiin oo xitaa shaqada ay qabtaan uusan isagu qaban karin. sidaas oy tahayna wuxuu rabaa shaqaalihiisa inay noqdaan sida isaga oo kale. kaasoo kale waxaa lagu tilmaamaa maamulaha xun ama managerka xun. ma jiro qof noqon kara qof kale. dadku isku aqoon maaha, isku karti maaha, isku dabeecadna maaha, isku sina ma noqon karaan labada qof. calaamada shanaad, waxa uu adeegsadaa lacago loogu talagalay shaqaalaha kambaniga inay ugu dabaaldegaan guushooda. waxaa jira ballanqaadyo loo ballanqaado shaqaalaha markii ay howl qabanayaan ama loo diro shaqo culus. waxaa la yidhaahdaa haddii aad shaqada ku qabataan maalmaha intaa la-eg ama wakhtiga intaa la-eg waxaad heli doontaan abaalmarin. shaqada way ku guulaysanayaan shaqaaluhu, waxayna u qabanayaan si adag. kadib markii ay shaqada qabtaan waxay rabaan abaalmarintoodii. maamulaha xun shaqaalihiisa ma siiyo abaalmarintaas loogu talagalay ee asaga ayaa si gaara u qaata oo cuna. haddaba iska ilaali haddii aad maamulo noqotid ama aad kambani manager ka noqotid, sidaanoo kale howlo dhaqmin shaqaalahaaga. waad ku mahadsan tahay daawade daawashada muuqaalkan. haddaba iska ilaali inaad yeelatid calaamadahaas xunxun, waayo waxay kuu sababi karaan maamul xumo iyo inaad shaqadaada ku weydid mararka qaar. waad mahadsan tahay daawade. ha ilaawin inaad noo saartid subscribe si aan kugu soo badino muuqaalo sidaan oo kale ah oo adiga ku anfacaya.